السلام عليكم أصحابتا خالقة دونك meel kasta ka joogtiin waan salaamay maanta waxaa idin wadaa chia seed kaltuune maxaa ku caatooday noo soo sheeg waxaa idin soo ogaaday in lagu caatoowayo waxaa u baahan tahay hal qaado oo chia seed hal qaado chia seed waxaa ka buuxa fiber iyo antioxidant iyo macdan iyo fitamiino iyo omega 3 waxaa waayay baruur ay jirkeena u baahan tahay baruur jirkeena ku jirto oo caafimaad leh chia waxay nadiifisaa mindhicirka marka laga soo tago caawinta caafimaadka dheefshiidka waxay haysataa fiber aada u fara badan waxayna kaa dhigaysaa inay qof dharagsan tahay camal fahmi markaa cuntid waxay nidaamisaa kolestaroolka waa maxay kolestarool mataqaanin horta kolestarool waa subag baruur jirka ku jirta fiber ka buuxo chia seed cunto leh fiber weeyaan oo ku filan kaana caawineyso ka hortagayso calool fadhiga oo waxay ilaalisaa caafimaadka dheefshiidka 8 times ka badan omega fatty acids marka loo eego salmon kalluunka la dhahayo 5 times more calcium than milk ku jirto caanaha inta calcium laga helo 5 jibaar ku jirto chia seedka antioxidantska ka badan blueberries waa taqaaniin qashin saar jirka suubiya 2 jibaar potassium inta laga helo mooska potassium waxaa macdin laga maarmin oo u baahan yahay dhammaan unugyada jirka oo keedisa biyaha unugyada ku keedisa jirka unugyada waxaa waay cellska marka jirka u baahan yahay runtii chia seed waxaa isticmaali kartaa bedelka ukunta way ku geli kartaa antioxidants waa maxay waxaa waaye unugyo ka caawin kara jidhkaaga inuu la dagaalamo xagjirida xorta ah ee waxyeelada leh kuwaas oo lala xiriiriyo xaalado caafimaad sida sonkorowga iyo kansarka ay ka hortagtaa antioxidants hadaa maqshid waxaa waaye waa nadiifiyaha jirka unugyada waxaas oo dhan caafimaadka laga helo antioxidant qashin saarka hortag waay marka hadeertaan chia seedkeena waa qasanay fridge-ka gashaneynaa hadaa rabtid hal saac ay kugu jiri kartaa hadaa rabtidna inta waxaa la rabaa la soo bararto fahmaysaa waxaa waa biyaha markii lagu dhex rido way jilicdaa kadibna way furfurtaa marka ani hadda waxaa suubin rabaa beri subaxdii insha allah ku quraacani rabaa marka si fiican u daboola egwaaba waayba maalintii xigtay waaye hadeertaan waa la soo baxay bal aragno sidee ay kusoo baxday chia seedkeena maanta hargaba ahaayo codkeyga waxoogaa hadaa culeyska dareemeysiin sida arkeysiin waa soo yar furfurtay waa arkeysiin waa soo yar furtay maanba saaid barbararta ida dhan saasaana laga rabaa marka hadeertaan waxaa rabaa liinta halkaas taalo iyo malab inaan intaa ku daro aan isku shiido mirahan wuxuu haystaa borotiinka ku jira qudaarta oo kaleeto waxay ka shaqeysiisaa dheefshiidka sida hore idin kusoo sheegay waxayna fududeysaa gubashada baruurta qofka markuu buuran yahay baruurtiisa ee la dagaalameysaa hadaa rabti si degdega inaad ku caatoodid waxaa isticmaaleysaa liintaas dhan dheefshiidka ay u fiican tahay liintana waxayna xakameyneysaa inuu ku fuulo miisaan fahmaysiin marka miisaan haddaad rabin inuu ku fuulo liinta ku dadaal liin le cab adi markasta liin dhanaan le cab biyahaada liin dhanaan le ku darso wax kasta hadeertaan marka labada jaba waa isticmaalaa dadka qaar waxay isticmaalaan hal jaba keliya laakiin labadaba waa isticmaalaa labada jaba oo hal xabo oo liin juuska dhana kala baxaya liinta waxay xoojineysaa caafimaadkaaga waxayna kaa ilaalineysaa bakteeriyada waxyeeleysa jirka ama waxyeelada ku leh jirkaada waxaa ku jira xoogaa bir waxaa laga wadaa iron marka waxay kaa ilaalin doontaa dhiig yarida liinta dhiig yarida kaa ilaalinaya vitamin C iyo citric acid ku jiro dhiig la-aan inay kugu dhacdo ayay kaa difaacaysaa liinta waxaa suurtagal ah birta ugu badan inaan ka nugno cuntooyinka isticmaalna ka helnaa
birta ama ironka. Waxay yareysaa liinta inaa heshid kansar. Waxay wanaajisaa caafimaadka dheefshiidka. Si kastaba dadka caba liin dhanaanta oo aan lahayn qolofkeeda, ma fahamteen, faa'iidada oo fiberka oo laga helayo way ku yaraanaysaa. marka miraha markaasaas oo kale u meertid miraha iska ilaali. qaraar waa di kale cabitaanka qaraarka noqonayo. marka aniga saas iskaga sarsaaro. qof kastana wuu iska saarayo umaleena qof oo ku deysanayo ma jiro miraha meesha waa maya soo maahan. marka hadaa rabtid inaad caatoodid walaalay ama walaalow chia seedka isku ogow walaahi iyo liinta labadaas isku darso. labadaas markaa isku darsato malabna ku darso. intaas waxaa waaye way isla falgalayaan. bil markaa wadid fiiri miisaankaada. koobka ku wada shubaysaa. hadda malab baa ku darsanaya hal qaado malab mise hal malqacad maa la dhahaa. runtii malabkan wuxuu kaa caawinayaa inuu jirkaada maxaa la dhahaa nadiifiyo, unugyadaada nadiifiyo oo jirkaada ka taxadaro waxyaabaha oo maaragtay faktoriyaasha hadirtaan soo saaraan oo kaleeto. maxaa la dhahaa pollutionka iyo waxaas ka hortagaysa. pollution waxaa la dhahaa hawada oo la wasaqeeyo, fahmaysaa, hawada wasaqeysan oo maxaa la dhahaa shirkada maa la dhahaa kuwaan wax soo saaraan. marka waxaa ka dhigaysaa sida smoothie camal, ma fahamteen. chia seedka hadaa rabtid faa'iidadeedana waa la shiidaa. chia seed kaligiis hadaa cuntidna maxaa la dhahay gaaraysid horumar. marka waa inaa liin dhanaan ku darsatid. sida saxda waa inaa uga shaqaysataa si oo faa'iidada u heshid, sida faa'iidada u heshid ama horumar u gaarsid ama u aragtid inuu weydka ka dhacayo. marka cabitaankaaneeto waa ku quraacani kartaa ama waa ku casheeni kartaa. habeenkii cashaha cunin intaas cab bilna wad. subax quraacaha cunin intaas le cab. waxyaabo kalena way jiraan waa idin soo suubini doonaa. energy drink camal waa hadda kan fuul ka dhiga fuul yaa. aad ugu mahadsantiin halkan hadda daawanaysiinba. fadlan waxaa ii sheegtaa adduunka meesha joogtid oo iga daawanaysid commentiga iigu soo qor. marka adeertaan baashi wax ku shiidana waa iska soo dhaqday hore ka soo dhaqay because wax kale lagu shiidana mugtagin. marka adeertaan waa kaasa biyihii cabitaanka juice-ki waa soo diyaarsaday. yaa adeertaaneeto waxaa waaye waa la isku caateeyaa afaarahan isku caateeya. dadkii caatada raadinayo intaasito rukunta yaa waxaan ku dhahay waxaa kaa dhaceyso miisaan aadan filayna kaa dhacaayo. waxaana ku jiro minerals, vitamins, yaa wax kasta oo nafaqo leh baa ku jiro meeshaaneeto. aad ay ugu mahadsantahay daawashadaada ilaa halkaan baad soo gaartay. fadlan like noo saar, subscribe noo saar. waxaan ku leeyahay maalin qurux badan hortaada ha ahaato iyo gadaashaadaba. aad iyo aad u mahadsantihiin. bye bye.